يسدات النين صحابي يسدات يتبان أما السقالي يتبان هويني أي إسلامي دمرة ولا هيجرو دي حبش بالغ النقطة مركله قريش waxay tiri waa in ragga hijrooday dadka hijrooday ee Itoobiya tagay ama Xabash tagay waa inaan ka daba tagnaa la yiri oo soo celino laba nin baa la diray oo quwad badnaa hadalka yaqaanay tijaarada yaqaanay Itoobiya iyo Xabash yaqaanay waxa la yiraahdaa Amr ibn al-Aas hatta waxa la leeyahay Amr ibn al-Aas Najaashi ay saaxiib ahaayeen iyo Abdullah ibn Abi Rabi' intana islaamin weeyaan marka dambe islaamid doonaan labadan intana islaamin ka hor ay ahayd labadan nin baa la diray hadiyad baa loo dhiibay far badan waxa la yiraahdaa hadiyada qaada Najaashi wuxuu leeyahay dad ilaaliya iyo askar iyo wuxuu leeyahay dadka hooseeya jira hadiyada dadka siiya hadiyad weyna waa loo dhiibay waxa dhitaana Najaashi siiya kala hadla siday u soo celin lahaayeen ragga soo hijrooday ee dhulkiisa u soo baxsaday markii meeshii ay yimaadeen gubadii bay bixiyeen gubadii bay siiyeen rashwadii ay siiyeen raggii waxay yiraahdeen markaan aan la hadlayno Najaashi inkuna na taageero oo haadha oo baqarkii baa loo ogolaaday inay u soo galaan waxay yiraahdeen ayuhal malik baqaro dhulkaaga waxa yimid qaar aqli gaab ayaa yimid faaraqu diin qawmihim قومكي يعني waxay ka tageen diinkii qoomkooga ka tageen diinkaagana may raacin diin jadiid ay la yimaadeen oo nu garanayn oo jadiida la na'rifuhu nahnu wala ant ana kuna man naqana adama taqani waxaana soo diray annaka qoomkooga kuwii sharafta lahaa u talinayay ayaana soo diray abayaashood adeeradood qaraabadoodii si aad ugu celis dib ugu celis iyaka yaqaana arintooda waxay ku canaananayaan iyaka yaqaana kuwii la gubeeyay askartii ayaa waxa yiraahdeen sadaqa ayuhal malik run bay sheegayaan labada nin u dhiib raga inaga fogay sharkooga iyo maarta inaga fogay Najaashi wuxuu ahaa radiyallahu anhu nin aqli badan buu ahaa maybu yiri wallahi ni dhiibi maayo ilaa aan u yeerayo on hubinayo waxa ay wadaan diinka ay wadaan iyo waxay wataan ilaa aan hubinayo igu yeedhay buu yiri waa loo yeedhay asxaabtuna waxay ku heshiiyeen run inay ku hadlaan ee lagu soo heshiiyay hadalkana waxa loo deystay Jaafar ibn Abi Talib baa loo deystay Jaafar markii ay soo taageen meeshaas waxa uu yiri ayuhal malik isaga hadlaya waxa uu yiri Najaashi baa Allah hadla war waa maxay diinkan aad wadataan ee diinkaygana aan ahayn diinka qoomkiinana aan ahayn waa maxay Jaafar baa hadlay waxa uu yiri ayuhal malik baqaro kunna qawma ahli jahiliya dad jahiliya ku sugan baanu ahaan jirnay na'budu al-asnam sanabkan aabudaynay wa na'kulu al-maytata ميت كان عنيني ونأتي الفواحش حمان تأردن زينة يحمان أردن بل لا إيمانيني ونقطع الأرحام رحم كأيان قوينيني يا قرابضة ونسيء الجوار شار كانوا والحمينيني ويأكل القوي منا الضعيف كأي قوة له إتال كله ضعيف كأتاك ثير أي حولها كقادنا عني يجيبي سبب سدا ساكو السجنين إلى إلهي نصادري رسولا منا رسول أنك نجمدا نعرف نسبه نسكيس أن نقانو صدقيس رنتيس أمانديس دورسونديس أن نقانو إلهي كلي أهانتي من نووي عليك إن الإلهي كلي أن عابدنا أصنام تن أنقعنت كسمين إن كتجنا نجحا أو ثانتا وحنا أمري إن رنت أنكو هذا الله أمانة إن جودنو وقفك أمانة نودي بين السيدة والسينو وصلة الرحم قرابة إن الحرير النو شارك إن وناتشنو حارانتا إن كفوجانو ديج أيا عيننا إن كجوكسنو حمان أو دمبو نجربي هذا الكحون أو دمبو نجربي أكل مال اليتيم أقوم كحوله سؤال عنو نجربي
dumarka waa wanaagsan oo la caayo oo zina lagu tuuro lagu caayo ayuu naga reebay wuxuuna amray ilaahay keliya inaan caabudno oonu u shariig yeelin ilaah inaan salaada la tukanno zakada inaan dadka masaakiinta ee fuqaraada inaan siino inaan soonno waxa uu tiriyey islaamka iyo wanaagga islaamka ayuu tiriyey waan rumaynay markaas waan raacnay nebigaas wixii uu la yimid ayaan raacnay ilaahay umaanu shariig yeelin wax alla wixii xaaraan uu naga reebay oo dhanna waan ka fogaanay wixii xalaal oo dhanna waa inta aan karaynin waanu la nimid qoomkayagii ayaana la coloobay facadabuuna wayna cadaabeen diinkayaga inay naga hor joogsadaan bay dooneen inay asnaamtii iyo watankii aan caabudaynin nagu celiyaan ayay dooneen inaan xumaantii aan dib ugu noqonno ayay dooneen falammaa qaharuuna markayna qahreen ayna dulmeen ayna cidhiidhina geliyeen waxaaluu baynanaa wa bayna diinina ay dooneen diinkayaga iyo annaka inay na kala dhex galaan kharajnaa ilaa bilaadik dhulkaagaan u soo baxnay u soo hijroonnay dadka oo dhanna adaan kaa doorannay diinkaagana waan jaarnimadaadana waan jeclaannay waxaanu kaa codsanaynaa anlaa nudlama cindaka ayuha almelik inaanan agtaada inaan lagu dulmiyin ayaanu kaa codsanaynaa najaashi baa eegay waxa uu yidhi najaashi waa nin ahlu kitaaba kitaabkii horuu haystaa wuu og yahay yani wakhtiga nebigu uu soo bixi iyo kitaab buu haystaa waxa uu yidhi nebigiinu wuxuu la yimid qur'aankuu la yimid wax ma ka xafidsantaho ma haysaa jacfar baa yidhi haa igu akhri buu yidhi wuxuu akhriyey suuratu maryam kaafhaa yaa cayn saad ayuu akhriyey najaashi wuu fahmay suuratu maryam waxay ka warramaysaa nebi ciise siduu u dhashay iyo ka warramaysa wuxuu ka warramaysaa suuraddaasi ninkan diinka uu haysto ayay ka warramaysa suuraddaasi uu akhriyey wuu ooyey najaash ilaa garhkiisii lilmadii ay buuxisay kuwii ag joogay xertii ag fadhiday way wala ooyeen iyakuna gebi ilaa ay kutubtii ay haysteen wax ku qorayeen ay lilma ay la buuxiyeen waxa uu yidhi wallaahi waxa uu la yimid nebigiinu iyo wixii uu nebi ciise la yimid meel quraatay ka wala yimaadeen labadii nin buu eegay waxa uu ku yidhi falaa wallaahi laa usallimuhum ilaykumaa inii dhiibi maayo ragga socda ka baxa meesha markay sii baxayeen ayuu camr ibni caas saaxiibkii la hadlay waxa uu yidhi beri toolaan ku soo noqon ka qusani maayo markaasaan waxaan u sheegi arrin marka uu maqlo ka xanaaqi najaashi markaasaa waxa uu yidhi cabdillaahi ibnu rabiica ku yidhi laa tafcal ha yeelin sidaa war raggani haban isdiidni waa qaraabadeenna ma doonayna in la googooyo oo la xidho oo si xun loo gale ragga ha u sheegi naga daa buu yidhi may buu yidhi waan u sheegi waa inoo beri toole subaxdii ayay ballanka la qabsadeen boqorkii bay ku soo noqdeen waxay yidhaahdeen boqorow innahum yaquuluuna fii ciisa bni maryam qowlan cadiima waxay sheegayaan raggani waxaa ka mida nebi ciise hadal wax kale ku sheegayaan ciise wuxuu u haystaa isagu inuu ilaah yahay u haystaa ama ina ilaah inuu yahay ayuu haystaa waxay rumaysan yihiin yaku raggan aad soo dhowaysay wax kale rumaysay inuu addoon yahay ayay rumaysan yihiin cabdullaahi wa rasuulih addoonkii ilaahay iyo rasuulkiisa inuu yahay ayay rumaysan yihiin u yeedh ragga odaygii baa xanaaqay najaashi igu yeedha buu yidhi waa loo yeedhay wayse soo hortaageen maxaad ka sheegaysaan buu yidhi ciise runtaan sheegaynaa ayay yidhaahdeen waxa weeyaan ciise cabdullaah waa addoonkii ilaahay ina ilaah ma aha ilaahna ma ah waa addoonkii ilaahay ilaahay baa abuuray waa rasuulkii ilaahay uu dadka ka dhex doortay weeyaan waa kelmaddii ilaahay ruuxdii ilaahay ku afuuf maryam weeyaan najaashi tafyar qoryar buu qaado waxa uu yidhi wallaahi waxaad la timaadeen iyo nebigiinnu waxa uu la yimid
وحقول حي أنت إنك وما دحيس مركزك كواحدي أكبر في الديدي أسكرتي الشيء باش شنقدي هبشان قراني بيقول هبى جوحان كواني وحقول حي ملك دينك وليمد يدينك عيسى وليمد ومد قرات الصحابة وحكوا أرض كجلا آمن بات كتيه والرمية رضي الله عنه سنقول وإسلامي لبدي النبو آي وحكوا هدية ده إيه كان نوعلي رجل ودن كان على قصار وعلى قصار مرك أم سلمة وحي لا ذهي سوانا كسبان لوسو دوي نقول في عنا وانكسو جنين intii aan joognay dhulka Habash Quraysh way xanaaqday dhulka isla dhaceen Quraysh hadda waxay bilaabaysaa odaygii Abu Talib ayay u hanjabayaan خلاص waxay leeyihiin Abu Talib waa inaan isaga naftiisa aanu hanjabno waa inoo toddobaadka dambe hadda la yiraahdo waxa jirta laba cajaladood aad u macaan oo taariikhdan aan ka waramaya oo af Soomaaliya قفك دوني إنه آد أسي فهمه إياد أيو دقيسن وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على سيدنا محمد. هموم المسلمين غدت كثيرة قضاياهم بلا جدل مثيرة فتلك جراحهم أدمت فؤادي ومن آلامهم نفسي حسيرة هموم المسلمين غدت كثيرة قضاياهم بلا جدل مثيرة فتلك جراحهم أدمت فؤادي ومن العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا شريك له لا إله إلا هو وإليه النشور وإليه المصير إخواني في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته waxaan toddobaadkii hore aan ka soo hadalnay raggii Quraysheed nabiga calayhi salaatu wassalaam dhibaatada ay ku hayeen iyo asxaabtiis raggii hijrooday ee Jacfar ibn Abi Talib iyo Uthman ibn Affan iyo inay Quraysh ka daba dirtay qaar soo celiya laakiin odagii Najaashi in uu soo dhaweeyay iyakina uu soo celiyay caawa haddu alla yiraahdo waxaan ka hadlaynaa Quraysh oo u luga jugeynaysa odaygii Abu Talib oo hanjabaysa le khalaas adiga iyo isaga waan iskiin raacinaynaa oo nugu dili adiga naftaada waxaan arki doonaa Quraysh oo isku dayaysa nabiga inay dilaan calayhi salaatu wassalaam waxaan arki doonaa caawa haddu alla yiraahdo Hamza oo islaamaya Umar ibn Khattab oo islaamaya waxaan arki doonaa sanadkii caamul xuzni la oranayay sanadkii murugta